su-aashaan ku weydiinaya waxa weeyaan sidee u aragtaa Itoobiyaanka dhibaatooyinka ay u geysanayso Soomaalida? السلام عليكم magacayga waxaa la yiraahdaa Umar Ahmed waxaan joogaa magaalada Toronto horta waxa qalad ah inuu magaalada Toronto joogay adiga in wareysanay halkan kafee ka caabaa inaan ka hadalno waxaas waxay ku fiicneed inaan wadankii joogno oo aan xaaladda iska celino oo dadkeena u kaalmayno maanta waxa igu maqaala laba nin oo maray isbartiibada agteeda inay xabashidu toogteen gabdho la socday oo Soomaaliyeena ay xerada gashadeen marka waxay ku fiican tahay dhammaanteen Soomaali haddaan nahay in aan xiriyaha ay ku jiraan madax isugu tuurno oo nimankaan iska celino intay maalin walba qofna dariiqa nooga dil lahaayeen gabdhaheennana ay xiriyahooda gasho lahaayeen waxaasuna waa waxyaalo maaragtay ii sheeg laga xumaado aan iska dayno cadiifada dhexdeena iyo xumaanta annagu aan isku geysanay oo maaragtay ii sheeg horay u soo jirtay oo hadda keenaysa inaan iscaawin هذا الكلام.